kulankan diiniga ah ee baraarujinta ahaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonnada iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Nugaal wuxuuna ahaa mid si weyn loo soo camiray ayna u diyaarsanaayeen ka faa'iideysiga darsigan sheekh ee ku aadanaa habka qaadista iyo bixinta magta iyo qaadashada laaluushka iyo halka ay diinteenu ka istaagtay ayna sii dheer tahay muhiimadda ay leedahay shakhsiga loo dooranayo matalaadda shacab iyo sifooyinka kala duwan ee lagu soo xulan karo shakhsigaasi Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo ka hadlayay qaadista magta iyo sida ay Soomaalidu u isticmaasho ayaa tilmaamay in xeer dhaqameedka Soomaaliga ee lagu dabaqo magsiinta uu ku salaysan yahay hab dulmi ah taasi oo sababta inta badan inaysan dhammaan aanada qabaliga ahi mararka qaarna sababta dhiig badan inuu ku daato waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo cuqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay haddaad tidhaahdo sama lagu fulinaya waxa laga yaabaa in dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodii way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelnaa la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwa ragumba soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee waxaynu maanta ka yeelnaa waxay go'aansadeen wixii Ilaahay inoo soo dejiyaan ka yeelno way ku dhaqeen reerkina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii Ilaahay uu jiday la yiraahdaa agoonka yar Soomaali mesela dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamida inanka yar ee abihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaaltay fadhiisteen yiraahdaa ninkii waa cafinay isagoo waxba la weydiinin ama la jajuubay ee markii la qaatayna la yiraahdo adiga laba halaad ba kugu soo hagaagay abihii ma laba halaad buu kaga sabrayaade Soomaha uu sinayntu ama qaqaan gaadhayo ama mid cidla marayo uu ka helayo uu sugayaa waxana aanad u dhamaan weyday dilkan u dhamaan waayay wax weeyaan de qofka weynu jujuubna qofna mayna sabirsiinin laba mid un bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaano oo yiraahdo baahinkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqbalo iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolka geela ka hayso waad iska baraariyo cafi dadka Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe